dood badan ayaa ka taagan inay Soomaali yihiin iyo inaysan ahayn. Muuqaalkoodu waxa uu aad ugu eg yahay Soomaalida, dhaqanka iyo nolosha oo idil waa ka Soomaali, ilaa luqadoodu xataa ay af Soomaaliga soo dhex gasho. Dadkani waxaa loo yaqaan Rendile, waa qabiil ama koox dad ah oo ku nool waqooyiga dalka Kenya. Warbixintan ayaan ku eegi doonaa asalka qabiilkan iyo meesha ay ka soo jeedaan. Rendile ma Soomaali baa mise ma aha? Ku soo dhawaada barnaamijka Bayaan. Rendile qabiilkan waa dad leh dhaqan Soomaaliyeed oo muuq ahaana aad ugu eg Soomaalida, ilaa heer la gaarsiiyo in asalkoodu ay Soomaali ahaayeen. Waxay ahaayeen dad reer guuraa ahaa asalkoodu, laakiin hadda waxay deegaan ku yihiin waqooyiga dalka Kenya. Lama degaanka Kaysuud ee bariga ka xiga harada Turkana ee waqooyiga Kenya waa halka ay badi ku nool yihiin hadda qabiilka Rendile. Inkastoo la sheego in sidoo kale lagu arko ama qaybo ka mid ah ay joogaan dalalka Itoobiya iyo Uganda. Haddaba su'aashu waxay tahay, xagee ka yimaadeen asalkoodu? Qabiilka Rendile Soomaali badan waxay aaminsan yihiin in asalkoodu ay Soomaali yihiin, laakiin markii la qiimeeyo waxaa la eegaa Soomaalida ka hor ama inta aysan dhalan Soomaalida, xagee ayay ka yimaadeen? Arrinta aan la isku diidanayn waxay tahay in dadkani ay yihiin Cushitic, waa halka Soomaalidu asal ahaan ay ka yimaadeen. Ma aha Soomaali keliya, waxaa sidoo kale Cushitic ah dalalka Geeska Afrika oo ay ka mid yihiin Itoobiya, Kenya, Djibouti iyo Soomaali. Ereyga Cushitic waxaa loo yaqaan dad kala duwan sida caddaan iyo madow, jareer iyo jilaa. Dad sidaas oo kale ah oo isku tegay ayaa loogu yeeray Cushitic people. Laakiin haddii halkaasi laga yimaado, qabiilka Rendile waxa uu asal ahaan leeyahay dhaqankii Soomaalida. Waa dad xoolo dhaqato ah, si gaar ah waxay u dhaqdaan geela oo Soomaalidu ay caan ku ahayd. Sidoo kale waa dad reer guuraa ah. Bulshada reer guuraaga ahi waa bulsho aan degganayn oo guurguurta. Waa xoololey ama xoolo jir. Bulshadan waxa ay u guurtaa hadba meeshii roob ama daaq lagu sheego. Haddii qabiilka Rendile uu ahaan lahaa bulsho reer guri ah ama deegaan ah, waxa lagu tilmaami lahaa inay yihiin Kenyaan. Laakiin maadaama ay reer guuraa yihiin, dhaqanka Soomaaliyeedna ay leeyihiin, waxay u badan tahay inay Soomaali yihiin. Dadkan ayaa sanadadii u dambeeyay waxay fahmeen oo ay la jaanqaadeen ilbaxnimada dunida. Waxay isticmaalaan baraha bulshada. Waa marka ay Soomaalidu fahmeen in qabiil Rendile la dhaho uu ka maqan yahay. Marka aad eegto muuqaalkooda oo aad dhugato afkooda, shaki la'aan waa Soomaali ayaad leedahay. Mararka ay hadlayaan, waxa afkooda aynaan laga waayin erayo Soomaali ah, laakiin iyaga ay u yaqaanaan inay tahay luqadooda. Waa tii sanado ka hor dagaal uu ku dhex maray baraha bulshada, gaar ahaan TikTok, inama Soomaaliyeed oo dadka Rendile ku qabsaday afka ay ku hadlayaan oo erayo Soomaali u badnaa. Haddaba ilaa iyo haatan digaalada iyo riboodyada laga qoray qabiilka Rendile laguma sheegin waddanka ay u dhasheen, laakiin waxaa la qiray inay yihiin Cushitic, sidoo kalena ay leeyihiin dhaqankii Soomaalida. Haddaba adigu aragtidaada hoos nagula wadaag, muuqaalkana laag saar oo sii sheer gare si dad badan ay u bartaan. Haddii aad nagu cusub tahayna ku soo biir boggeena Xuseen Xaaji Xasan. Mahadsanid.